عليكم ورحمة الله وبركاته. halka iga daawanaysaa waa channelkayga dugaal waano fadlan hadda igu cusubtahay subscribe sar hadda ila joogtana laagto commentigana waa muhiim waxaan jecelahay hadii la hawooda saamaxayna idila wadaaga sheekadii igu dhalisay inaan youtube-kan samaysto sheekadan haya farsano sheekadan waxay ku dhacday gabar Soomaaliyeed waxay tiri maxay ahayd toole waxaan ahaabay tiri ilmo yar waxaan la joogay tiri hooyaday urkeeda anoo leh aabahay dhintay bay tiri aabahay wuxuu ahaa madi ayeydii iyo awowgeyna aabahay nool ayay dhinteenba waxay tiri aabahay waanu caloosha ku jiro dhintay hooyaday baa soo korsatay ilaa aan gaaray bay tiri aanan ahayn qaangaarka laakiin caruurnimana alxamdulillah aan ka roonahay oo aan waxna garan karo wixii xun aan garan karo wixii san aan garan karo waxay tiri maalmaha kamid ah ay hooyaday xanuunsatay hooyaday ma ilahayn bay tiri wax ehel ah iyadana hal gabar baa la dhalatay halkii gabar waxay tiri anigu ma aqaano si hooyo ii sheegtay hooyaday waxay saaxiib la ahayd gabar isku meel ay ka shaqayn jiray adigu maamo weyn hooyo way xanuunsatay hooyo dhakhtar baa la geeyay hooyadayna si daro waxay tiri saacadeedii baa soo dhamaatay hooyaday waa ay dhimatay waxaa la igala dardaarmay hooyo saaxiibteed hooyaday saaxiibteed baa la igala dardaarmay tiri hooyaday waxantii waxay ka tagtay hal guri iyo gaari halkii guri iyo gaari ayay ka tagtay tiri waxay kaloo ka tagtay wax yar oo lacag ah oo aan isleeyahay markaas aan garanay laakiin hadda ku qiyaasi karo $1,500 $1,500 ayay dhameed laakiin markaasay tiri waxay ahayd qofka ugu hantida badan san yani haddaan haysan lahaa markaa aniga hantida ama yani iga tegi lahayd hooyaday waxay tiri hooyaday allah u naxariisto waa la aasay maamadii la igala dardaarmay baa isoo kaxaysatay gurigeedii bay keensatay maamada waxay ahayd toole maamo weyn waxay haysatay 7 caruur ah 4 wiil iyo waxay haysatay 3 gabdhood iyo saygeedii iyo waxa kale oo la noolayd maamo kale oo ay walaalayeen laakiin wali aan wax caruur waligeed dhalin waxay tiri gurigii baan imid markii hooyaday ay noolayd bay tiri allah u naxariiste galina waxaan baran jiray tiri galina dugsi baan dhigan jiray oo iskuul la galin baan dhigan jiray galina waxaan dhigan jiray tiri dugsiga waxay tiri halkaa markaa imid bay tiri dugsi wixii warkiistaa iskuul sidoo kale waxaa la ii daayay bay tiri inaan jikada galo qofaan hooyo ahayn qofkaan xamid jiro qofaan ehelkaaga ahayna kaama naxo inkastoo dadku damiirka ay isleeyihiin qof waxaa jira damiirkii ka dhintay ma waxaa jirta hooyo caruur leh u damqanaysa caruurta iyo waxaa jirta hooyo aan caruur lahayn oo u damqanaysa qofka waxay tiri damqashadii waalidnimo kama helin bay tiri iyadoo caruur leh waxaa laygu sameeyey tiri maxay ahayd toole wax aan ilmo yar u dulqaadan karin waxaa layga dhigay bay tiri jaariyadii reerka barashadii waa la ii diiday hooyaday say u dhimatay bay tiri ma helin bay tiri farxad ama wanaag waxay tiri waxaan ka shaqeeyaa bay tiri jikada iyaga shaaqadooyin bay leeyihiin oo guryaha u hagaajiya ana waxaan kariyaa bay tiri cuntada markii horena waxaan ahaa bay tiri gabar hooyadeed wax walba ay bartay alxamdulillah rabbil caalamiin oo markii hore oo hooyaday noolaydba maamadan way garan jirtay inaan cuntada ku wanaagsanahay inaan guriga hawshiisa ku wanaagsanahay waxbarashadeeda waxa ayagoo dhan inaan samaysan karo oo yani dadaalkii hooyana ay igu muujisay ana aan dadaalkaygii kasoo baxay waxay tiri jikadii adiga gal waxay tiri cuntadan suugiyey waxaan ka baryay bay tiri jikada waan gelayaa laakiin waxaan kaa codsanayaa hal gelin inaan wax barto hal saac kaliya si aan dhigto birbaati ama prefad waxay tiri hal gaaro waqtigeeda waa ii diiday bay tiri waxay tiri wax walbaan sameeyaa waxay tiri waxay kaleeto ay ballan iigu qaaday ama iga ballan qaaday tiri haddii sidii aan rabo aan wax u sameeyo inay igeyso dugsigii ayna igeyso maxaa la dhahaa iskuulkii oo qaybtii waxay haye ayaan iri bay tiri waxay tiri kow shuruudaha ay la gashay waxaa kamid ahaa in aanan inta guriga la joogo oo wiilasheeda iyo ay joogan odageeda inaanan meesha aanan iman madbaqa wuxuu leeyahay qolka madbaqa
ku yaala ayaan joogaa bay tiri habeenkii xilliga ay meesha ka tagaan baa anigu qolkayga jiifka aada u seexdaa qol baan leeyahay tiri oo fadhiga hoostiisa ku yaala qayb kamida fadhiga ayaga kor bay seexdaan waxay tiri hayaa eri bay tiri qolkayga jikada iska jooga ku dhex yaala kushiinka cuntadaan diyaariya cuntada markaan diyaariya haddii ay joogaan meesha cuntada lagu diyaariya guriga 2 jiko leeyahay jiko waa jikada aniga qolka iigu dhex taalo maalintii oo dhan joogo midna waxaa waaye tiri mid cuntada iyadoo diyaarsan la keeno qadadiina ay dhex taalo dadkii fadhiya haddii cuntadii la keenayo waxay tiri la iima ogola laakiin haddii ay dadka meesha ka maqan yihiin cuntada loo diyaarinayo waa soo qaadi karaa waa dhigi karaa aniga meesha waxay tiri haddii ay dadka joogaan total la iima ogola tiri waxay ahayd shuruudda koowaad waxay tiri in inta dadka joogaan aan istusin laba waxay tiri in aanan maxay ahayd soole cuntadaas aanan keenin iyagoo fadhiya tan kale inaanan bixin xilliga ay joogaan guriga oo la ii diiday inaanan banaanka albaabka u bixin ciddahan albaab buu leeyahay waayahay baa ari bay tiri maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday bay tiri odayga wuxuu yiri waxaan keensanayaa martiqaad odayaa buu keensaday cunto baa la yidhaah la kariyo cashada tan cashada la yidhaahdo waxaa la iiga dhigay masti faradul cayn inaan cashadaas seeraynba haddii ay martiqaad tahayna kaba daranba waxaan sameeyey maxay ahayd soole cashadii martiqaadkii waxay caawiye waa waaye ilaahay waa ii fududeeye waan samaystay bay tiri martiqaadkii cuntadii waa la kariyey waa la cunay odaygii wuxuu yidhi maxay ahayd soole caawa cashada adiga martidii way cunto way kala tageen wuxuu yidhi caawa cashada ruuxii kariyey odayga guriga iskale caawa cashada qofka kariyey waxaan siinayaa abaalmarin maamada waxay gabdhaheeda gabar ka mid ayaa waxay tiri hebla ayaa karisay bes hebla ayaa karisay tiri meeshiiba abaalgud lagu siiyey waxaa ii timid maamadii ilaahay khayr ha siiya bay tiri maamada la dhalatay laakiin aan weligeed ilmo dhalin ayaa waxay tiri cashadii xal ah karisay ayaa waxay siisay gabadheedii bay ku mana sheeganaysaa waxay leedahay heblah karisayo adigiina waxay tiri adigiina waa lagu yani magacaaga lama sheegin waxay tiri aniga dhib malahay tiri maadaama hooyadayba waayay tiri wax maanta magaca kala rabo ma jirto waxaa dhacda bay tiri inaan sidii ahaado guriga ku noolahay waxaa jirtay bay tiri maamo kale oo hooyada ay lacag ku lahayd lacagta qadar u dhow adigu waxay tiri igalana dardaarantay markaas ay hooyaday dhimanaysa tiri hadda wuxuu mahaya laakiin haddaa helo waa ballan gabadhaada siinaya adigu lacag qiyaas ahaan $300 u dhiganta waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah waxaa iri bay tiri maamadii ay la joogtay hooyo igala dardaaranta waxaan rabaa heble inaan lacagtii ka doonto markaase waxay tiri hadda ma aha intaada lacagta maalintaa doonanaysa waa inaa ii sheegtay 3 beri ka hor inaa iclaamkaysiisatid waayo oo tiraada lacagtaasaan doonanaya waa maxay waxaa hadda ii sheegaysa haya waxaan eriyay tiri maalin heblo aan rabaa inaan doonto haddii ilaahay qadaro waxaa dhacday bay tiri maalintii in la gaaray inaan baxay guriga marka sharci baa u dejisan salaada duhur inaan la bixin gurigaas oo albaabkaba la furin xataa hadday shaaqiyo tahay dadka guriga degan maahan dadkan kale aynayna bixi karin salaada maqrib oo kale iyo salaada 12 saac markay tahay xilliga shaqada la aadayo iyo dugsiyada iyo inaan aan la bixin dadka guriga degan maahan waxaa dhacday bay tiri salaadii casarka markii la adimay laakiin aan la aqrin ayaan baxay bay tiri markaan baxay maamada wiilay dhashay ayaa wuxuu iga arkay kor daaqada waan baxay bay tiri maamadiiban aaday tiri maamadiiban lacagtii qayb ka mid aan kasoo helay tiri waxna waan kasoo waayay waan soo noqday haddana markaa soo galayuu arkay wuxuu u yimid city roomkii ayuu soo kor ayuu kasoo dhaadhacay hoos buu yimid wuxuu yidhi yaa soo galay hooyadii baa joogta kasida ruuxna ma soo galay suu hooyadaa arkay ruux baa soo galay albaabkana kasoo galay qof dumara weeyaan ma jaarkaa qof inoo yimid markaasi tira maya jaarka inooma iman hooyo waa indhahaa wucuudi bilista wuu iska tegay waxay tiri sheekadii waxaan iska galay tiri jikadeydii waa la joogay bay tiri habeenada ka mid ayaan xanuunsaday tiri xanuun aan u malaynayaba inay nafta ii bixayso waxay tiri waxaa ii yimid maamadii caawin jirtay ee aan weligeed ilmaha dhalin iyada la dhalatay daawooyin yaryar baa la ii keenay
waxba igama ay tarin. waxay tiri quraanka iska akhriya macalinteenka iska akhristaa. waxay tiri may adigu 4 habeen markaan sidii waxaan u sameeyay ayaa markii dambe tiri tabar dhigay heer aan gaaray tiri salaadii inaan fadhi ku tukado. habeenkiiba waxay ugu day tiri maamadii reerka iska lahayd dhakhtar bay geysay daawooyin baa la ii soo qoray. waxaa la iga helay tiri xanuunka typhoidka la yiraahdo. waa imid 3 habeen markay kasoo wareegtay ayaa on kasii darbay tiri daawadeena ilaahayba uu wali daawo caafimaad uusan iigu darin ayaa waxay tiri waxay imaanayeen wiilal ayada eeda u tahay oo ka imaanaya xagga iyo qurbaha. waxay tiri caawa wiilashaas soo galay waxaan rabaa casuumaadina u korista. waxaan ku yiri tiri eedam yaadan ahay qof damiir leh qof damqanaya qof mahaagi oo kale ay ka xanuunsan yihiin. waxay tiri daawo $150 aan kugu daaweeyay waa maxay xanuunkaad sheegaysid ilaa masti waaye cashadan ina caawo samaysid. waxay tiri waan isdhibay habeenkii waan sameeyay bay tiri maana samayn bay tiri astaghfirullah habeenkii waan isdhibay bay tiri jikada markaan istaaga bay tiri ayaa miiri ugu dambeysay tiri qof xanuunsan oo wuxuu rabay daawo qalalan iska cunayo caawimaad fiican helin kaabitaan fiican helin hooyo haysan. waxaan tiri madbaqi baa iga soo qaaday ma khayr allah siiyo maamadii oo ilmaha dhalin ee ii roonayd iyo maamadii kale ayaa wixii cashada iska samaystay. hadalkii markii la geeyay cashadii ee la cunay ayuu odagii reerka soo budfiiray cashada waxaa ka fiicnayd cashadii heble ay habeenkii samaysay. ilaahay amarkii hebladii iyada markaasi toro waa ay ka maqantay guriga. markaas hooyadii waxay tiri heblo way xanuunsan tahay. waa run anaa sameeyay waa xanuunsan laakiin hebladii magaceeda la siiyay ayay leedahay iyadu way xanuunsan tahay. bas waxaa dhacday bay tiri inaan sidii xanuunkii xoogaa aan ka soo roonaado ilaahay iska bariyay. waxay tiri habeenada ka mid ayaan cashadii la cunay oo weelashii aan doonay tiri soo qaad weelashii isirabay tiri yaare aan waxaan damcay bay tiri soo qaad weelasha cashada. waxay arkay wiil ka mid weelasha oo maamada ay dhashay markii horena ay arkay. wuxuu yiri maxaad ahayd lamaana hadal bay tiri oo soo orda maqbaqaan soo galay tiri qolkaydii baan sii galay. wuxuu damcay inuu iga soo daba cararo. nasiib wanaag waxay tiri qolkaa xirtay because waxaa ii dhegsan bay tiri sharci ah hadduu ruux ku arko inaanan waxbarasho leegeynin ana tii waxbarashadan eegayaa bay tiri inuu qof ii arkana mar jikadii uu kasoo baxay hooyadii baa kortay war maxaa ku dhacay hooyo ruuxa halkan taagnaa laabta qaaday ruuxii baan ka daba baxay ruuxina halkan isku xiray. say tiri ruuxan waa gurigan hadda ka hor waxaa deganaan jiray reerkii waxay uga tageen bay tiri habeenkii waxaa lagu arkaa jikadan qof baa ku jira maamula guryaha imaada albaabada ka baxa. waa cudurleysta bisirda waxaan la sheegayo waa run iska tagay. khiyaar sheekada way dheer tahay timekaro waa time yar inshallah biidnillahi tacaala waa idin soo dhamaystiri doonaa. waxaan idinka codsanayaa haddaa igu cusub tahay subscribe haddaa ila joogtana laaga commentigana waa noo muhiim wixii dhiirigelina waa isiin kartaa walaalahay. wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi